بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وناكسنا غيارتا نلا سعوتي دلكين بميل كستوات جوكتان وأفرتا بيشا أكتوبر سنة كوا لباكون شاني لباتان قدبوا وينو حيسلا أيان إذن كوغوها ياتبينتن maxaa ka soo baxay kulankii caawa ay yeesheen wasiirada gaarka ah ee Israel iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu maxuuse yahay sirta la yaab kale ee uu caawa daboolka ka qaaday ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu carabta ayaa moraal dilaacday markii uu soo bandhigay qorshahan isla markaana ay bilowday tabinteeda warbaahinta guud ahaanba Israel taasoo muujinaysa in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump qorshaha la doonayo magaalada Gaza in lagu dhaqo aysan ka iman dhinaca Mareykanka balse ay tahay mid ay hore u soo jeedisay Israel warkan markii uu soo baxay sidee loo fasiray warbaan idinkaga haya arrintaas ra'iisul wasaaraha Israel waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay magaalada go'doonsan hadda xalka laga doonayo dagaalka muddada dheer ee ka socday kadib in magaaladaasi ay noqon doonto meel hubka ka caagan oo aanay jiri doonin qof caraba oo hub ku dhex wadan kara marka la fiiriyo hindisaha caawa uu soo saaray taas uu leeyahay waan ku dhaqan gelinaynaa dagaalka maxaa ka jira weli Netanyahu inuusan ka tanaasulin weerarkii iyo weliba dagaalkii uu ku qaadi lahaa magaaladaasi cadaadis baa isaaran ayuu yiri laakiin yoolashii dagaalku weli ma dhamaan muxuu haddaba hadalkaasi ula jeedaa muxuuse yahay fasiraadda ay ka bixinayaan qubarada militariga barnaamijka ayaan ku dul istaagi doonaa sidoo kale dhinaca kale waxaan eegi doonaa inta aan wada joogno akhyaarta inala socotay dowladda Iran mar kasta ayay qarka u saaran tahay in la weeraro maadaama hadda la leeyahay Israel waxa ay ka soo jeesan doontaa dagaalkii muddada dheer socday warbixin xasaasi ayuu qoray wargeyska Yedi'ood Ahronot ee Israel ay ka soo baxa gudaheeda isla markaana la hadla qaybo kamid ah dibadda waxa uu leeyahay waxa la gaaray xilligii la qabjabin lahaa dowladda Iran waxa la gaaray xilligii dowladda Iran laga hortagi lahaa kaydka hubka gantaalaha hypersoniga ah oo ay diyaarinayso haddaba xal u helidda dagaalkan magaalada go'doonsan ma waxay ujeedadoodu tahay furin kale oo dagaal in la furo maxay yihiin qubarada dagaalku waxa ay ka digayaan barnaamijka ayaan ku lafaguri doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa haddii rabbiga weyn saamaxo inta aan barnaamijka wada joogna akhyaaray ninkii ugu horreeyay oo ka soo jeeda Israel ayaa xildhibaan muddo 60 iyo dhowr sano ah kadib iska sharaxaya gudaha waddanka Syria waxa uu leeyahay xuquuqdii awoowayaashii ayaan daba socdaa muddo dheer oo aan musaafiris halkan uga maqnaa waxaan soo gaaray Syria waxaan qayb ka noqon doonaa ololaha doorashada waana isi sharaxi doonaa waliba waxa la leeyahay ninkan waxay u badan tahay xildhibaan inuu ka noqdo gudaha waddanka Syria isagoo waliba Israel ka soo jeeda dhalasho ahaan muxuu yahay sababta ninkan iyo waliba ololihiisa ay sida weyn wax uga qorayaan isla markaana ay u boonboonayaan warbaahinta Turkiga maxaa halkan ku jira wax badan baan ku sheegi doonaa idilkiinba soo dhawaada qodobadaas ayaan dul mari doonaa inta barnaamijka aan wada joogno Cabdicasiis Barrow ayaan ahay muuqaalkii labaad ayaynu ku kulmaynaa caawa share gareeya muuqaalkan saaxiibadiin la wadaaga YouTube-ka subscribe saara Facebook-kana follow ina soo dhaha aad baad u mahadsantiin Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolal jiif oo heer sareeya hoolka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogto ah Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka sidaad la socoteen ba gobolka bariga dhexe waxa haatan ka socda isbeddello waaweyn dagaalkii muddada 2 sano ahaa ka badan socday ayaa loo raadinayaa xal dhameystiran oo la doonayo dagaalkaasi in lagu soo gabagabeeyo laakiin ciyaarta dhinac kale ayaa loo rogayaa sida qubarada qaar ay ku doodayaan qoraal lagu magacaabo Badi al-Sawan ayaa telefishinka Al Jazeera ku qoray warbixin xasaasi ah oo cilmi baaris ah oo dhinacyo badan taabanaysa warbixintan waxa uu ku leeyahay waa markii Iran dagaalka lagu qaadi lahaa
haddaba waxa uu leeyahay iiraan iyo israa'iil mar kale ayay u muuqdaan inay ku sii dhowaanayaan dhabaha cusub ee dagaalka iyo inay iswajahaan. warbixintu waxay leedahay gobolka bariga dhexe ayaa galay marxalad cusub kadib markii reer galbeedku ay dib ugu dhawaaqeen in la saaro cunaqabatayntii waddanka iiraan, taas oo dib u soo celisay cunaqabatayntii caalamiga ahayd ee saarnayd waddankaasi oo hore looga qaaday sanadkii 2015. tallaabadan ayaan ahayn mid dhaqaale oo keliya, balse waxay furtay weji cusub oo siyaasadeed iyo mid ciidan oo laga cabsi qabo in ay beddelaan nidaamka awoodeed ee gobolka. cunaqabataynta oo 4 ilaa 5 qodob ka kooban ayaa ah in iiraan laga mamnuucayo soo dejinta iyo soo iibsashada hubka labadaba. waxaa lagu amrayaa inay joojiso bacriminta uraniumka, xanibaad lagu sameeya hantida qaran ee iiraanka ka taalla caalamka, iyo weliba in ogolaashaha waddamadan in ay baaraan diyaaradaha iyo maraakiibta iiraan haddii loo maleeyo in ay wadaan alaabo hore waddankaasi looga mamnuucay oo dalka iiraan guud ahaanba uusan yeelan doonin wax maamuusa oo u dhigma sida dowladaha ay isku tixgeliyaan. haddaba maxaa qasbaya israa'iil inay gasho tallaabo military? ciwaan dhaxaad warbixinta ku jira ayaa layidhi israa'iil waxay kor u qaaday diyaargarowdeeda militariga ee ka dhankaa dalka iiraan. israa'iil ayaa si dhow la socota xaaladda weyn islamarkaana sare u qaaday heerka feejignaanta ciidan. mana ahan baa layidhi oo keliya barnaamijka nucleerka waxay sidoo kale dareemaysaa khatarta weyn ee gantaalaha balastiga ah ee sii xoogaysanaya ee dowladda iiraan ay leedahay. sida uu daabacay wargeyska idiico daxranuut qaybta dibadda la hadlaysa ayaa sheegay in dagaalkii dhacay bishii juun ee hore ee sanadkan gabagabada ah uu muujiyey in iiraan inkasta oo ay dhaawacyo soo gaareen haddana ay awood u leedahay joogtaynta difaaceeda hawada, iyadoo weliba ka dhigaysa baa layidhi in ay si weyn uga hortagtay weerar kasta oo lagu soo qaadi karo oo xagga hawada ah. qabiir dhinaca siyaasadda iyo militariga ka faallooda ee bariga dhexe ku takhasusay ayaa u sheegay telefishinka aljazeera in iiraan ay ka mid tahay dalalka yar ee tiknolojiyadda gantaalaha hybersoniga haysta, kuwaasi oo si dhaqso leh u qaadi karaya weerar qalqalgeliya baa layidhi nidaamka israa'iil. haddaba xiisaddan sii xoogaysanaysay ee cunaqabatayntan ayaa noqonaya difaac cabsi laga muujinaya. iyadoo cunaqabataynta dib loo soo celiyey, sirdoonka israa'iil waxay aaminsan yihiin in cadaadiska dhaqaale iiraan uu ku riixi karo inay dedejiso soo saarista barnaamijkeeda nucleerka ee laga cabsi qabo iyo gantaalaha balastiga ah. mas-uul sare oo ka tirsan israa'iil ayaa u sheegay wargeyska xarnuut isagoo leh yaan la iska dhaadhicin iiraan way nugushahay oo waa daciiftay. waxay awood u tahay buu leeyahay in ay waxay doonto samayso, khatarteeduna waa ay sii baahaysaa. marka in la yidhaahdo iiraan waa laga adkaaday wax saxa ma noqonayso. israa'iil waxay aaminsan tahay in hadda kadib ay ka shaqaynayso dib u dhiska awooddeeda ciidan kadib dagaalkii hore waa iiraan, iyadoo diiradda saaraysa hagaajinta difaacyadeeda iyo dib u soo celinta xarumaha adag ee gantaalaha laga tuuro. tallaabooyinka cusub ee israa'iil iyo maraykanku ay qaadeen maxay beddeli karayaan oo warbixin lagu daray sheekadan cilmibaarista ah. israa'iil waxay kordhisa baa layidhi ururinta xogta sirdoonka si ay ula socdaan dib u dhiska awoodda iiraan, iyadoo sidoo kale waddo diblomaasiyadeed oo ay la gelayso maraykanka, shiinaha iyo ruushka si looga hortago taageero militari oo ay iiraan hesho. marka saddexda dowladood si isku mida ayay israa'iil ula dhaqmaysaa. sidoo kale bishii abril ee lasoo dhaafay, diyaaradaha xamuulka ah ee maraykanka ayaa ka degta baa layidhi saldhig ciidanka israa'iil ay leeyihiin, kuwaas oo sida nidaamyada difaaca gantaalaha ee loogu talagalay taad la yidhaahdo, taas oo loo arko calaamad cad oo muujinaysa diyaargarow dagaal oo cusub oo laga yaabo in uu qarxo haddii xaaladdu ay sii xumaato. marka dagaalkan hadda gobolka bariga dhexe ee la joojinayo iyo weliba cadaadiska la saaray nimanka la yidhaahdo dhaqdhaqaaqa hubaysan ee xamaas waxa ay muujinaysaa in hadda dowladda iiraan loo gacan bannaanaanayo sida khubaradan ay ku doodayaan.
warbixintan cilmi baarista ah ee la qorana ay tilmaamayso. dhinaca bariga dhexaan sii joogayaa weli ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu yidhi waxaan ka dhigi doonaa magaalada go'doonsan ee hadda heshiiska laga gaarayo meel ka caagan hubka oo aanay jirin qof caraba inuu hubku wato. heshiiskuna waxa uu dhigayaa buu leeyahay mid aad iyo muhiim u ah lagamana gudbin yoolashii dagaalka. sir badan oo la yaab leh ayuu bannaanka soo dhigay ninkan sida uu ku dhawaaqayaba. ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in ay doonayaan in ay dhowr maalmood gudahood lagu soo afjaro wadahadallada lagu qabanayo gudaha waddanka Masar, isla markaana looga doodayo qorshaha dowladda Maraykanku ay soo bandhigtay ee lagu joojinayo dagaalka Gaza. hadalkani waxa uu ka sheegay kulan uu la yeeshay 2 wasiir oo ka tirsan dowladdiisa. hadalkan ayuu sheegay baa layidhi kadib markii uu si degdeg ah kulan ula yeeshay wasiirka amniga qaranka Itamar Ben-Gvir iyo kan maaliyadda Smotrich, kuwaas oo ka tirsan xukuumaddiisa midigta fog. Netanyahu oo maxkamadda dambiyada adduunku ay raadinayso ayaa sabab la xiriira dambiyo dagaal ayaa waxa uu yidhi dhammaan la haystayaasha kuwa nool iyo meydadkaba dib baa loo soo celin doonaa iyadoo ciidamada Israa'iil ay weli ku sugan yihiin magaalada go'doonsan oo aysan ka bixi doonin halkaasna ay ka shaqaynayaan. wuxuu intaas ku daray kama tanaasulin yoolasha dagaalka inkasta uu yidhi in uu wajahayo cadaadis weyn oo caalami ah oo gudaha iyo dibadda ka saaran si loo joojiyo dagaalka. marka waxa uu leeyahay aniga dagaalkan in aan joojiyo igama suuragelin laakiin cadaadis baa dusha layga saaray. ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu si dhow la shaqaynayo Trump iyo kooxdiisa siyaasadda isagoo ku tilmaamay in tallaabadan aysan bedelayn siyaasadda ee gobolka sida uu hadalka u dhigay. Xamaas waa la go'doomiye buu yidhi ma ahan Israa'iil inta dhibaatooyinka ay gaarayaan. marka annaga waa guulaysanay ayuu dadkiisa u sheegayaa. inkastoo khubarada madaxa bannaan ay leeyihiin cidda arrintan guulaysanaysa waa nimanka Falastiiniyiinta. si kalema loo dhigi karaa ha maya marka laba dhinac laga fiiriyo. mar waxay u muuqataa dagaalkan inuu soo dedejiyey in magaaladan oo kooxdan ka talinayeen ay gacantooda ka baxday. marka aragtida xanuun kale oo shacabka Falastiiniga ay wax ku qiimeynayaan laga fiiriyo. halka dhinaca siyaasiga marka laga eegana la leeyahay cadaadis weyn ayaa Israa'iil hor yaalla sida daraadeed waa laga xalaaleeyay magaaladaas inaanay qabsan karin. doodaas baa meesha taagan. wadahadallada cusub ee ka soconaya Qaahira waxaa loo magacaabay wasiir Israa'iil ku matali doona oo hogaaminaya laakiin amar kale ayuu Netanyahu duldhigay. wuxuu leeyahay Netanyahu ayaa sheegay in ay faray Ron Dermer wasiirka istiraatiijiga ah in uu hogaamiyo wafdiga Israa'iil u aadaya Qaahira si ay uga qayb galaan wadahadallada ku saabsan qorshaha Trump isagoo carabka ku adkeeyay in uu doonayo wadahadalladaasi in lagu soo afjaro dhowr maalmood oo kaliya. waxa uu sheegay kooxda hadda waxaa saaran cadaadis xoog leh si buuxdana waxay u aqbashay soo jeedintii Trump. marxaladda labaad waa in hubka laga dhiga kooxdan. magaaladuna waxay noqon doontaa buu leeyahay meel aan hub lagu haysan karin heshiis ama dagaal midkood ayuu hadalkiisa sii raaciyay. marka odaga waa calan wallaynayaa caawa meel uu taagan yahaba looma dhowaan karo. hase ahaatee sir weyn ayuu bannaanka keenay taasoo caawa raadiyaha dowladda oo nidaamka Israa'iil ee kan la yidhaahdo uu ku dhawaaqayo tan oo carabta wadna qabad ku noqday markii arkayeen inay guulaysteen. laakiin maxaa dhacay? hadalka Netanyahu ayaa la jaan qaadaya hadal uu isla maanta ka jeediyay wasiirka amuraha dibadda Israa'iil Gideon Saar kaasoo sheegaya in qorshaha Trump uusan lagu qasbin Israa'iil balse uu yahay hindise siyaasadeed oo markii horeba ay Israa'iil lahayd. 22 qodob ee la wareejinayo magaalada lagu dhaqi doono annaga keenoo leeyahay Trump soo dhiibna. marka maba jirinba wax Maraykan ka yimid oo Israa'iil loo keenay laakiin hindisii Israa'iil ayaa Maraykanka la geeyay. Maraykanka ayaa haddana soo jeediyay Israa'iil waxay tiri waa aqbalay nimanka Xamaasta waa laga saxiixday. sidaas uu hadalku u dhigayaa. warbaahinta Israa'iil oo ay ku jirto kan ayaa soo xiganaya ila sheegaya in Israa'iil ay la gashay marxaladda koowaad ee wadahadal la doonayo in lagu soo celiyo dhammaan maxaabiista
sidoo kale janalka 12aad ayaa soo xigtay mas-uul sare oo israa'iili ah oo sheegaya in maxaabiista la soo celin doono maalmo yar gudahood ila wareedyadu waxay intaa ku darayaan in fursadda kooxdu ay diidi karto aysan diidi karin baa la yidhi shuruudaha wada hadalka marka carabta wax badan baa hadda ka muuqanaya in looga guulaystay waayahay albaabkaas waxaan doonayaa inaan kaa soo xiro aan ku keena dhinaca Syria ninkii Axmed Sharac ahaa maalinba waxbuu ka tanaasulayay maalinba waxbaa lagu dayay ugu dambeyntii hadda waxa uu aqbalay wiil dhalasho ahaan ka soo jeeday Israa'iil balse Syrian ah inuu u ogolaado baarlamaanka inuu tartamo waxa la leeyahay marka xorriyadda afkaarta diimaha aragtiyada iyo bulshooyinka la ixtiraamaya sidaa daraadeed waa in Israa'iil halkan matalaad ay ku yeelataa maxaa dhacay telefishinka TRT Turkiga laga leeyahay ayaa qoraya ninka la yiraahdo Henry Hamra oo ah musharax ka socda baa la yiri bulshada Israa'iil ee Syria ayaa noqday ninkii ugu horeeyay ee markaasi ka soo jeeda oo muddo 60 sano ku dhow u tartama kursi siyaasi ah isagoo sheegay in Syria ay tahay dal ixtiraama dhammaan muwaadiniintiisa isla markaana aan loo ogeyn qowmiyadda diinta iyo madhabka toona laakiin ani Syria ahay buu leeyahay wax ii diidaya ma inaan tartamo Hamra oo waraysi siiyay wakaaladda wararka Anadolu ee waddanka Turkiga wuxuu leeyahay waxaa sharaf weyn ah inaan noqdo musharax u taagan golaha shacabka Syria waa maalin taariikhi ah oo calaamad u ah Syriada cusub taas marka waxa uu leeyahay hadda guul baa la gaaray waana tartami karnaa waxa uu tilmaamay in ololihiisa doorashada uu diiradda ku saarayo dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in dalka Syria laga qaado cunaqabataynta in dadaalo badan oo la doonayo dib u dhiska uu qayb ka noqo horumarinta dhaqaalaha inuu kaalin ka qaado iyo dib u helidda cadaaladda maadaama nidaamkii Bashar al-Assad uu wax weyn geysta buu yiri taasoo hadda tilmaamaysa inay xun tahay waxaan ku farxayaa inaan ahay muwaadin u dhashay Syria ayuu mar kale ku celiyay waraysigiisa Hamra oo 48 jir ah ayaa sheegay in qorshihiisa uu yahay inuu ku noolaa waddankaasi kuna noolaan doonaan ilaa ay 3 jeelna ay ku noolaayeen aniga aabahay iyo awoogay dhammaanteen waxaan ku dhalanay Syria ayuu yiri ma jirto sabab aan halkan ku ilaawi karayno wuxuu intaas ku daray shacabkaygu muddo 3,000 oo sano ah ayay halkan ka soo jeedeen hadda inaan aniga matalo waa sharaf kale ayuu yiri qoys taariikhi ah oo dib ugu soo laabtay Dimashq ayaa lagu tilmaamay arrintiisan Yusuf Hamra oo ahaa awowgii waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaashii bulshada Israa'iil ee Syria deganaa laakiin Xaafiz al-Assad ayaa meesha ka saaray markii 1992 lagu qasbay qoyskiisa iyo bulshadii kale in halkaas ay ka cararaan kadib 3 sano oo qoyskiisa dibad joog ahaayeen Henry Hamra waxa uu hadda ku soo laabtay Dimashq sanadkan 2025 waxana uu ku dhawaaqay in uu is sharaxi doono odaygii Axmed Sharac ahaa dadaal iyo culaysyo badan oo gacanta lagu hayay wax badan buu ka tanaasulayaa taariikhdu waa buug aad baad u mahadsantiin akhyaarteena la socota ay tabintana intaas ayaan ku abiyayaa waa barhooyda leh nabadeed ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar